kooxda fanka iyo suugaanta ee Cakaara oo ka howlgala xarunta dhaqanka iyo hidaha ee Cakaara Academy Culture fadhigeeduna yahay magaalada Laascaanood ayaa soo bandhigay bandhig suugaameed ballaaran oo ay ugu talagaleen bulshooyinka gobolka Sool. Bandhig suugaameedkan oo ay soo jeedinayaan abwaano waaweyn oo ay ka mid ahaayeen Cismaan Cabdinuur Xaashi ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshooyinka gobolka Sool, waxaana madashaas lagu soo bandhigay noocyada kala duwan ee suugaanta Soomaaliyeed, riwaayado, maansooyin, gabayo, googaaleys iyo qaybo kale oo fara badan. bandhig ama munaasabad ay inoo suurtageliyeen oo ay inoo qabteen akademiyadda hidaha iyo dhaqanka ama xarunta hidaha iyo dhaqanka ee Cakaara ee ka jirta ama ka howlgasha magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool. barnaamijkan oo loogu magac daray Cawayska Cakaara waa barnaamij ballaaran qaybo fara badan oo kala duwan leh, isugu jira bandhig suugaaneed, maaweelo ama maxaan ku idhaahdaa madadaalo, wax kala faa'iidaysi iyo su'aalo. aniga oo geel la joogo oo geel tiraha waad garanaysaa wax ka kibir badan oo santaag badan oo gabdhaha iyo waxba uma yaqaano moogtahay. aniga oo geel la joogo oo iska caana maalay oo iska dhargay oo iska kibray baan waxaan arkay gabadh aan wada sheekaysan jiray baan meelaha ka eegayay aniga oo intaan caana maalay geel iska jiifa baan sanqadh maqlay. marka gabadhii markaanu isa salaanay bay dhaqaaqday, dib baan eegay oo kii geela iga weynaa baa yidhi war geela kaale soo ururo. intaan eegayba gabadhii dhaqaaqda waayba nag halkaasaa markaa tusaale ka soo qaatay. waxaan idhi cirkoo soo horay hogasha gugo hagaagay dambarsamuu hibitaqayoo hir soo kacay heega qaali ahoo hanqarkiiyo danabkuna higtaa guray dhul barwaaqo ah harada jeexyada biyuu habayaan hogobtiyo booluu xareed ka hifeen sidii damal weynta bari dhulkii dooxada lahaa dirirka cawleed ku da'ay dureeniyo bixida sima maroodiga doodan iyo biciidkiyo deeraadii haldhaago daawo shale cawshiyo gariguna dusha. Rasuulku xilbisada waa riwaayad weyn. xanuunaya riwaayadaha berigi hore aad looma aqoon, sangub iyaa lagu yaqaanay qolyahaas inay sameyn jireen. taariikhdan ay ururka tagsiya fagaa la tabay waxaa lagu tirshaatay saagugoo tilmaanta lumayn xidigaha aan sheegayo hadda halka iriida ka baxda way muuqanayaan. su'aashani waxay ku saabsan tahay aqalkii miyiga ee la dhisi jiray. aqalka miyiga waxa ugu muhiimsan ee lagu dhisaa waa hararo. hararada markaa stage waxay leeyihiin marxalado iyo noocyo lagu kala saaro farshaxankooda iyo qaabka loo sameeyo marka laga hadlayo. harar waxaa la yiraahdaa waa saddex leh, gabdhaha ay khaas u tahay su'aashan idinku waad ka hadhaysaan. mid waxa weeyaan waa saddex leh, mid waxa la waa shan leh, midna waa toddoba leh. saddexda darajo markuu dhaafo hararku wuxuu gaadhaa darajo professional, yani waxa sameyn kara qof maxaan ku raahdaa aad u xirfadyahan u samayn kara. saddexda darajo markuu dhaafo darajooyinka afraad dhowr magac bay leeyihiin, bal laba kamid ama saddex kamid ayaa sheegaya. idil hooyadeedii idil waa gabar yar oo jeclaa oo hooyada cagaha u meedha 15 way carruurtu idil saasay uga soo baxay. idil hooyadeedii ila Yuusuf Aamina waxa tahay ilwaad uu Ilaahay isiiyo aqoonta iyo garashada, akhlaaqda iyo quruxda iyo iimaanka sugan iyo sabirka iyo adkaysiga. iPhone-kii markay iPad iyo HP internet speed iyo orod loo dhameeyay. mar S4 Pro waa Galaxy S4, mar S4 Pro Escape lagu xiriirshay, iimaha wareegay, Facebook afkaartii oraah lagu xareeyay, YouTube ildeeray, mar idaacadayda anteenada hormuuday. mar idaacadayda anteenada hormuuday STG gabowday. EVC nin haysta aragaaga goobe I love you, can you love me? digsi xaafadeed iyo daawihii laxooxda iyo digsi xaafadeed oo orasa darmuus shaah qaboojow dabool ciid ku raagow daasad caana booro dambas iyo xashiishow digniin hooy daadaa runtii waa gudideelada bala caashada. waxaan maleynayaa barnaamijkan bilowgiisii ama markii laga fakarayay waxaan maleynayaa goobtii baan fadhiyey. waxaan maleynayaa inay ahayd war Somali News iyo Cakaara hala isku xidho showgan oo kalena aan noqdo mid ka soo baxa TV-ga.
mawlid ismaaciil haradigeed Somali News TV laascaanood.